waa maxay faa'iidooyinka ay carruurta u leeyihiin labadan talaal ee cusub ee hore uga soo hadalnay? bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Dr. Jibriil Maalin, dhakhtarka cudurrada carruurta. labadan talaal ee hore uga soo hadalnay waa laba talaal oo muhiim u ah carruurta caafimaadkooda. labadan talaalka koowaad oo ah midka ugu horeeya BCV-ga wuxuu ka hortagaa sida caabuqyada oof-wareenka iyo waxa loo yaqaano majaajiska. waana muhiim inay qaataan ilmuhu. talaalka labaad oo ah asagana rotaviruska wuxuu asagana ka hortagaa in ciyaalku ku dhaco shuban oo markaasna ay suurtagal noqoto in isbitaalada u galaan shubankaas oo problemi ziyaada kaga yimaado. talada muhiimka ugu dambeyso oo aan bixinayn oo talaalka ku saabsan waxay tahay talaalkan waa talaal adduunka laga isticmaalo ma ahan talaal hadda adduunka ku cusub. wax dhibaato ahna kuma sugna in la qaato, bal waxaa laga yaabaa in ciyaalka ay uga badbaadaan shubanka, oof-wareenka iyo weliba majaajiska iyo waxyaabaha la hilmaamo.